السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال جنالكا هرفد فيلمس وحودين هيا ور مهمة وكوسابسن مدحوينه ku-xigeenka wadanka Afghanistan oo ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu kharijiyo. madaxweyne ku-xigeenka Afghanistan Cabdirashiid Dastom ayaa ka badbaaday weerar ka dhacay waqooyiga dalkaas oo lagu dilay mid kamid ah ilaaladiisa. saraakiisha dalkaas ayaa sheegay in weerar gaadma ah lagu qaaday konoyo uu la socday General Dastom oo marayay gobolka la yiraahdo Balkh ee dalka Afghanistan. ururka Taliban ayaa sheegay in ay qaadeen weerarkaas oo socday hal saac ayna ku dhaawacmeen laba kale oo kamid ah ilaaladiisa sida ay sheegtay Taliban. waa isku daygii labaad oo lagu doonayay in lagu kharijiyo General Dastom tan iyo markii ninkan oo ka soo jeeda qowmiyadda la yiraahdo Uzbek ahaana qabqablad dagaal uu ka soo noqday musaafiris uu dibadda ugu maqnaa. bishii July ayay ahayd markii 14 qof lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul wax yar kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay, waxaana weerarkaas sheegtay kooxda la magac baxday dowladda Islaamka. General Dastom ayaa ku soo biiray dowladda midnimada qaranka ee Afghanistan sanadka markuu ahaa 2014 waana siyaasi muran badan ka dhaliyay markii uu ku soo biiriyay dowladda wadankaasi. wuxuuna kamid ahaa raggii 2001 Mareykanka gacanta ku siinayay in uu Taliban xukunka ka tuuro, waxaase lagu eedeeyay in uu falal wuxuushnimo ah uu ka geystay dalkaasi intii uu socday dagaalkii sokeeye. muddo sanad ka badan ayuu ku maqnaa dalka Turkiga kadib markii lagu eedeeyay in ciidamadiisa uu ku amray in ay afduubtaan oo ay farxumeeyaan nin loolan xagga siyaasadda ay kala dhaxaysay. waxaana uu beeniyay eedeymahaasi, waxaana uu ku adkaystay in socdaalkii uu Turkiga uu ku tagay uu ahaa mid caafimaad.